guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan ayaa jawaabo ka bixiyay cabashooyin ka timid musharaxiinta maamulka koonfur galbeed ee halkaasi maalinka bari ah looga meelsan yahay inay ka dhacdo doorashada ugu sareysay hoggaanka maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale Cabdicasiis Jawaari oo ah musharaxiinta maamulkaasi ayaa gabi ahaanba waxa ay diideen inay ka qayb galaan doorashada maamulkaasi inta laga saxayo cabashooyin ay ka soo jeediyeen hanaanka doorashooyinkaasi ay u dhacayaan iyo sidoo kale in ay sheegeen in musharaxa kale ee la tartamaya ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ka tirsan xisbiga GSB ee Sheekh Aadan Madoobe in uu saameyn xooggan ku leeyahay madaxtooyada maamulkaasi sidoo kalena talo uu ku leeyahay waxyaabaha halkaasi laga fulinayo guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan ayaa war-saxaafadeed soo saaray ay 3 qodob ugu jawaabeen warkii ka soo baxay musharaxiinta maamulkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa waxa lagu yiri jawaab celinta cabashada musharaxiinta amniga doorashada amniga goobta doorashada waxa mas'uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxa uu una diyaariyay ciidamo gaar ah oo ka madaxa bannaan dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 79aad ee sharciga doorashooyinka 2 dhexdhexaadnimada goobta doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu diyaariyay goob dhexdhexaad ah oo ka madaxa bannaan dhammaan musharaxiinta ayna u wada siman yihiin imaanshaheeda si waafaqsan qodobka 74aad farqadiisa 2 ee sharciga doorashooyinka 3 ilaalinta anshaxa codbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee sohdimaha waxa uu ku wargelinayaa xildhibaanada in ay ka reeban tahay in ila xirka codbixinta lala galo mobile iyo wixii la mid ah si loo ilaaliyo qarsoodiga codka si waafaqsan qodobka 3 iyo 56aad ee sharciga doorashooyinka qaranka LR 28/2024 war-saxaafadeedka ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay sidaa daraadeed waxa lagu wargelinayaa xildhibaanada codkooda dhiibanaya in ay u hoggaansamaan sharciga codkooduna u dhiibtaan si qarsoodi ah kana fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara qarsoodi ahaanshaha codkooda war-saxaafadeedkan ayaa wax ay kaliya 3 qodob ay ugu jawaabeen cabashadii ka timid musharaxiinta maamulkaasi ee kala ah Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale musharaxa kale ee Cabdicasiis Jawaari